الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أغهرين وحان أمهد علينا إلهي جل شأنه ما أنتنا مكانيي إن نسكوني ما ذو مكان كان بركيسا أنغو كقيب قلينا مناسبة لغوينينا قال شدي نبينا عليه الصلاة والسلام سيدا مسلمين تبا أي سمايان سنة والبمركة لقى ربشان أو ليرادو ربيع الأول كا ميل والبقى جوغان مسلمين تا بلاد إسلامية مالها كلا يهاجرين با أيضا قصد كي أجيدنا لقليه هاي أي تهاي إن لغو شكريه نعمدان أو وين أو جزيلة أو إلهي أو نسيه أو أحد رشد نبينا عليه الصلاة والسلام تاسو يعني عالم كوحوين كبد شيء أو ظلمات كي إيه مقدقي أو كفرق أو كجري كبحسي ونبحسي نور كي إيمانك هذه إلهي نعمة كسية وحالو باهي هاي نعمة داس إلهي كسية إنها تكشك رسيد وحمرك الله سمعينا أيو مناسبة لهان قيمها يقايها بدن وحكا لماهن وحاواي إلهي أيو وحالو غمهد علينا يا نعمة داس إلهي أو نسيي سيدات أكتهين خير الله ينسيو marka munaasabaadkan oo kale isku yimaado waxa la sameeyo wax kala ma ahan waa in laga sheekeeyo siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam inta waqtigu dadka u saamaxay siirada nabiga waa baaxad weyn tahay maalin iyo ayaam iyo bil iyo bilal lagu koobi karo si dadka muslimiinta ay uga faa'iideystaan maxay la waqtiin dadka ummadu kulligood ma ahan xirtu waa laga yaabaa inay akhristaan siirada nabiga oo kutubada ay akhristaan ayaa laga yaabaa لكن دتك عامدا أو أن أخرسان أو أما أن فرصة أهلين مواسم تانو كلامركي يمادين فرصة يؤتها وحيد جيسنا أيان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام جهودي أو دعوة كسب بحيي أو دعوة إسلامك يعني جوانب فربضن أو حيد جيسنا أيان معجزات كيس جيسنا أيان خصائصتي شيء جيسنا أيان وحبضن أي ككرسنا أيان مركا وحاكسوا كان marka laga soo tago tacliimintaas nabiga kaleey salaatu wasalaam tacliiminaayo ummadana waxa uu sugan faa'iido weyn xafladahan oo kale marka la sameeyo maxaa yeelay waa ogtihiin waxa la rabaa waxa waay nabiga kaleey salaatu wasalaam inaan jeclaano oo jacaylkiisa wax walba aan ka hormarino nafteena iyo maalkeena iyo ehelkeena aan ka hormarino qofka ma jeclaa kartid hadii aadan aqoonin wax aadan aqoonin lama jeclaa karo laakiin maanta marka laga sheekeeyo oo nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisi laga sheekeeyo sifaadkiisi oo khalqiga oo mistahay laga sheekeeyo sifaadkiisi oo khuluqiga ahay oo yaani dabeecadiisi laga sheekeeyo waxa waaye wax weyn ayaa ka kordhaya ilaahay ana amaanay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo quraankiisa ku amaanay annaga hada wuxuu naga baahan yahay ma jiraan laakiin annaga waxaan rabnaa waxyaabahaas aan sheegayno inaan annagu wax ku helno aan ku raadinayno marka khayr allah isiyo ikhwati alkiram maanta falilah alhamdu xafladan mashaayikh waaweyn oo culimada ugu waaweyn wadankan hadda joogta ayaa noogu xaadira hadii ilaahay yiraahdo ayagoo ka hadli doona mawaadiic kala duwan ee ku saabsan siirada nabigeena kaleey salaatu wasalaam marka waxaan soo dhaweynaynaa mashaayikhdaas noo joogta iyo duyuufta kale oo nagala qayb galaysa waxaan leenahay ahlan wa sahlan wa marhaban مناسبتنا ونوفرنتهاي وبالله التوفيق